dowladaha mucaaradka ku ah kana soo horjeeda aqoonsiga jamhuuriyadda Somaliland ka heshay dalka Israa'iil ayaa ilaa hadda akhriyi kari leh oo fahmi kari leh siyaasadda madaxweyne Cabdiraxmaan Maxamed Cabdilaahi Cirro 24 saacadood ee la soo dhaafay sirdoonka wadamadaasi diidan jiritaanka Somaliland waxay geed dheer iyo mid gaabanba u fuuleen inay ogaadaan halka uu ku sugan yahay madaxweyne Cabdiraxmaan Maxamed Cabdilaahi Cirro qaarkood ayaa aaminsan inuu dalka ka maqan yahay kuna sugan yahay dalka Israa'iil halka qaar kalena aaminsan yihiin inuu ku sugan yahay dalka isku tagga Imaaraadka Carabta waxaana taasi muujinaysaa in jahawareerka ku dhacay malaysan karin halka uu joogo madaxweynaha Somaliland iyo qaabka uu shaqeynayo balse warar hoose oo Damal Media heshay ayaa sheegaya in madaxweynaha jamhuuriyadda Somaliland Cabdiraxmaan Maxamed Cabdilaahi Cirro ku sugan yahay Somaliland safar shaqan oo uu bixi doono balse xogaha hoose aan helayna ma cadaynayaan halka uu safarkiisu ku jihaysan yahay wadamada sida aadka ugu dhaga barjoobay siyaasadda madaxweyne Cabdiraxmaan Cirro waxa kamid ah madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud iyo madaxweynaha Djibouti Ismaaciil Cumar Gele oo ilaa hadda akhriyi kari lahaa siyaasadda Dr. Cabdiraxmaan Maxamed Cabdilaahi Cirro oo ku noqotay har xilaalo siyaasadeed waxaana isku maaweelinayaan hadba fikrad aan la garanayn halkay ku jihaysan tahay waxaana muuqata inay ilaa hadda siyaasiyiintani noqdeen kuwa ku dhaga barjoobay siyaasadda aan la maraysan karin ee Cabdiraxmaan Maxamed Cabdilaahi Cirro waa madaxweynaha qaranka jamhuuriyadda Somaliland ee la aqoonsaday waqti xaadirkan wixii warar ka soo kordha socdaalka la filayo madaxweynaha jamhuuriyadda Somaliland Cabdiraxmaan Maxamed Cabdilaahi Cirro waxaad ka dheehan doontaan warbaahinta Damal Media